محمد أدب ما صدق مركو أوري وصلت شكتها حالة ضمنكو والدكنتها هي أصلاً واحد جت إسكاسينتي أو قان إلى الشريطة واحد بابوس كوس عن سامتيتو بنا عكرخت إسكاسينتي حق إنترنت كوي قان تاي إنك تو المجالات السياحات الحالات الدكنتها هي شري واحد لقد دبورية إلى شن بقول أو قيس وكم دتك مجالات السياحة الجنابة إمام الضمن كان يقول دكمل السياحة أي كده دبورية نورا كلا دبورية تولين كتقشي قال يا شعبه وإلى هات تقصدني مجرد sidaa kale waxa jirta dhinaca magaranaysa roobabka xalay tahay waxay saameyn badan ku yeesheen magaalada Garbada Dar oo haatan ay soo gaareen inta la xaqiijiyay ugu yaraan 5 qoys oo laba kamid ah haweenyihiin 3 qofna ay walaalayihiin oo daad ku qaaday isla markaana maanta meydkooda intii ugu dambeysay la helay ayaa la sheegayaa halka mid oo magaranaysa luqaya ku qaaday daadku oo oday la soo xaqiijiyay odayna ku qaaday meesha la yiraahdo Carrawareen oo agteeda magaalada Garbada Dar iyo 3 qof oo ku qaaday deegaanka la yiraahdo Waraabo Dareero Garbada Dar agteeda 3 qof oo walaalaha laba hablood iyo wiil inta la sheegay dadka intaas ayaa dhimatay waxa kale oo la sheegay xoolo ku dhow 900 oo neef oo isugu jira geel iyo ari ayaa ku leedahay dhammaan deegaanada gobolka Sanaag inta aan la xiriiray waxa kale oo la sheegay dhinaca koonfurta xalay dabayshii ugu dambeysay 3 gal ay adeynimo waxa ku dhifatay deegaanada Cabdulqaadir iyo Habaas iyo Xariirad oo la sheegay inay dumisay magaalada Xariirad 3 guri isugu jira sadaqada iyo guriga dhagaxa asaatay wax dad aan waxba wali ku noqon magaalada Habaas oo kale waxay ku dumisay 9 guri magaalada Cabdulqaadir waxay dumisay 23 guri oo ku jireen 4 meheeradood oo dukaano waaweyn ah laakiin lama sheegin wax dhimasho dhinacaas ka dhacday koonfurta ay ku soo sheegay hadda maxaa cawaale bal waxaad kaloo faahfaahin naga siisaa ilaa haatan xaaladdu waa si roobkii ma istaageen ma daadadkii uun baa socda waa sidee wali xaaladdu ilaa imka maxamed kulaasow saaka markii waagu bariyay waxa noo soo baxday caadi ahayd ee lagu yaqaanay xagaaga magaalada gobolka Sanaag isla markaana badii aad u degan tahay dhinaca kale fadadkaana daruuri aad oo kala dareeray oo kala magaranaysa oo kala jacayl aniga hadda kula hadlaya waxa ku xalimnaa tan iyo shalay duurkii waxa ku xalimnaa dooxa ay bariisle leedahay u dhaxeeya Toqoshi iyo magaalada Luuyaado saacad ka hor ayaan ka soo wareegay dhinaca badda aniga iyo maamulkii gobolka Sanaag barasaasi gobolka Nuur Maxamed Nuur oo dhaxal taxada ku wada xalimneen waas baan ka soo wareegnay dhinaca badda oo hadda ku soo galay magaalada Sanaag oo shalay ka dhaxnay anaga ku maqnay gurmad dhinaca magaalada Jabuuti oo dadka looga soo daabulayay roodi iyo wax laga soo qaaday ma garato waan gartay sidoo kale imika waxa yaala kale roobka buura ka daaya waxay saameyn ku yeesheen isku socodkii gaadiidka imika markaas joogto ceelgaal wixii ku xiga u socda saacada ceelgaal uma iman karto saacadana dabka ku xadiman saacada doorkiisa u socda labada kale isku iman karaan sidoo kale doorkii waxa socda Waraabo wuxuu saameyn ku yeeshay sidoo dadkii ku xidhnaa Toqoshi dhinaca Bariisle ayaa ka dhigay doorkii Bariisle hoosna lagu yacdo ku dhigay dooxii lagu yacdo isagoo socda dooxaasoo qaaday gaarigii wasaaradda maaliyadda ee magaalada lagu yacdo ilaa haatan isagoo ka dhaxaasan magaalada Sanaag dooxii hareeraha ka marayna dooxa la yiraahdo Firweyn aad u socda dooxa la yiraahdo Cashuurayn kuna aad u socdaan gaadiidkii ayaan sidii magaalada bagaashka ku socday Hargeysa iyo Wajaale oo 40 gaari laba maalmood waxay ku xadilayeen magaalada Sanaag ka sanka dhexdiisa waxa laga yaabaa inaanay toddobaadada soo socda xataa ka bixi karinin magaalada Sanaag oo isla ku noqoto go'doon markan aan la hadlay maayarka degmada Lughaya Cabdilaahi Cali aw Nuur waqtigaasi oo ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo Gargaaro Bari waxaan uu maayarku u sheegay halkaasi lagu aasiyay meydadka 9 qof oo waxyeello ay soo gaarsiiyeen roobabku bal aan markan aan la hadlo محمد عبد الله علي أو نور ما يركا دقمدا لغهيا حالدا هاتن بالمحادي فافاهين أديقا هيسا أديقا سين كرتا والله هذا ما تنتهى حالدا دمان تيس كما ورهيو وانتينو دقمدا دومي كبوانين انتين كانكو الله يهينك وبدرع المسكوطة هالكان شوفو كليان كياليسان ما تدو داي دوني ميسان شوفو يو ميلا كل دوم بحينتو بحين كرا warbixin inta aan hayo magaalka aan joogo waxa lagu aasayaa 9 qof midkooda hadda yaala oo la aasayaa 9 qof hadda xabaashooda loo dareeray waxa kale oo maqan ilaayo 8 qof oo kalena way maqan yihiin oo dhimasho lagu tirinayo xalay dawladda ku qaaday meesha ay deganaayeen midkoodina lama hayo 5 qof oo kale dhaawacnay halkan ay yaalaan magaalada dhexdeeda meel lagu daweeyo ma jirto dhakhtarkii iyo isbitaalkii iyo magaalada iyo dhan waxa gudbiyo roobkii waan gartay marka wallahi goobaha kale ee intaana warbixintooda ay xeebta ku dhowna waxaan filayaa inay sidan ka sii daran yihiin meeshaan joogay badda waxa u jirtaa 250 kiiloomitir u jirtaa oo Gargaaro Bari baa la yiraahdaa halkaas oo meelaha imika khasaarahan kaaga waramayo uu ka dhacay inta ka soo hooseysa xagga badda ka xigta si aan filayo wax nool in loogu tagay way yar tahay waan gartay
marka walaal warbixintu waa sidaa xoolo ma noola dadkii miiskoogi waana kaaga warramaya hadda 9 qof baa miiskooga intaa uu soo gaaray oo magaalada iyo hareeraheega uun ka dhacday meesha gargaarada iyo balle meesha la ilaa 9 qof ku kala dhinteen 9 qof miiskooga la leeyahayna area gargaarada dadka xoolo dhaqatada deganaa weeyaan xalay soo waxa la tagay daadadkii waan gartay marka miya wax gurmada la isuma fidin karo miya oo magaaladu gabi ahaanteed buu kala xiran tahay waa la kala xiran yahay tuulo talaabi kartaa ma jirto talay subaxii waxaan isku dayay inaan lugayo tago halkaan joogo markaan ka baxay 12 kilomitir iyo dhammaan socodkii gooyo gaarigii naga degay wadankiina bahar qiyay xalay waxaan u weyday meel cidla ah oo cidi joogin taaka lug baan ku soo noqday halkaan joogaan ugu soo noqdo hadda galabtan waxaan soo gaaray labadii waan gartay marka walaal ma jirto bixinteeda aan ogaan karaynaa way adag tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maayarka degmada lughaya cabdilaahi cali aw nuur oo khadka telefonka kula xidhiidhay markana waxa isaguna mar kale ii diyaar oo khadka telefonka isagana aan ku helay maayarka degmada baki maxamed axmed caateeye waxa isaguna uu sheegayaan dhimashada 7 qof halkaasi ay jirto deegaanada ku xeeran degmadaasi bal marka hore waxaan weydiinayaa maayar xaaladda degmada baki iyo guud ahaanba deegaanada ku xeeran maxaad faahfaahin ama warbixin aad ka haysaad iga siin kartaa tani dhacday waa noo sheegay digniintana waan maqlaynay runtii xoolaha iyo dadka meelaha taaga u socda lahaa oo duxida ka baxaya dhulka hooseeya arrintaasi dadka inta badan way maqleen waxaan kuu sheegayaa roobka imika daay raastacaadii buu bilaabmay uu qaaday mar laakiin marka laga bilaabo 8 ilaa xalay 12 barkii si xiriir u daayay maxaa waxyeelada imka oran kartaa waxyeeladu geystay haddaan ka warramo marka hore horta uu geystay khasaare nafiya maal bale waxa weeyaan 4 qof waa dhimasho oo 3 daad baa qaaday sawarka ku hayno dhul laga fog weeyey qof la qalbaa ku dimay qoyskaas 3 daad ku qaaday way isku qoys oo nin iyo gabadhiisii iyo aduu qoyskiisii waan gartay ninna guriga ku dimay oo isaguna u dhintay oo la aasaya afartaas waa dhimasho xagga dadka intaan hayno weli waan gartay inkastoo dhulka la fog yahay oo telefoonadu baktiisan yihiin oo hadba meel wax ka soo dhacayaan oo dhulku aanu la isku socon karin oo amba buuro diban yahay amba dhul degan yahay gaadiidna aanu soconayn waxaan kuu sheegayaa kale khasaare maal lahoon aad u baaxad ballaaran ayaa gaadhay dadka dhulku waa dhul beereed buu badaya dooxooyinka waaweyn oo dhulbiyooda beerahaasi dooxaasi dhan walba 2 kilomitir buu u kacay way ku-een sharcii la beertay waxba kama jiraan saaka taasi nin aan ka maqan oo aan joogin lama suuran kara runtii roobkii mise cishu idin hayay markaa roobku 3 maalmood buu nagu daayay annaga laakiin daraad intuu daayay buu naga qaaday shalay aroortii 8 buu dib u bilaabmay ilaa xalay 12 barkii lagu daayay ilaa imka midin hayaa imka uu naga qaatay yahay inkastoo la dul joogo waxaan kuu sheegayaa xoolaha baraf baa ku fadhiistay dhulkuwa xoolo dhaqata dadku reer guuraagu badan yahay ariga geel baa dhulka lagu dhaqdaa arigiyo geeli dhiigu ma fadhiisto arkagay xeryaa waxba ka soo bixin saaka waan gartay khasaaraha ballaaran buu geystay nin aan joogin looma sawiri karo runtii khasaaraha dhacay waa khasaare aad u ballaaran waan gartay dhimashada dadku waa 4 qof intaan hayna weli maxaa khasaare kale aad oran kartaa isu socodkii dadka iyo wixii oo dhan waxnimay ma sahaysaan weli wax gurmado weli idin soo gaadhay waxaan kuu sheegayaa degmada afarteeda kooxood bay ka tahay dhexdooda iskula socon karto waa wada buur iyo laag iyo dooxo intii wada go-an yihiin ta kale boorama gaari loogama iman karo gaari lagama tegi karo wadada markii horeba xumayd ee xalay ku dhacaya shalay buurihii baa ku dumay wadooyinkii baa go-ay kii boorama ka soo baxay saamacadda camuudda soo dhaafi waaya runtii markaa taasina waa caqabad kale oo isku socodkii iyo gurmadkii wixii gudada samayn lahaa ayada caqabad ku noqotay marka haddii ilaahay ilaahay waa gurmad laga tegi laakiin arrintu arrin aad u cakira weye degmada baki ka jirtaa degmada kale warkama hayaanu degmada luqaya 8 noogu dambaysay warkeedaba